بسم الله الرحمن الرحيم. وأنتم حنبرينا برنامج كسابسن كمبيوتر هذا اسكو حران أما سيرفر أما النتورك سيد لو دميو أو استعمال سيد كمبيوتر كاي سيدا ودمي كارتا كمبيوتر كلا أو كودو درس كاغا أو نتورك سيد عشان اسكو نتورك تين سيدا ودمي كرتت كمبيوتر بقف كلامية marka waan maraynaa shaqadaas aan isla fiirino maadaama one server hadday isla yihiin kombiyuutarada isticmaali kartaa inaad ka damiso qofkaas asoo isticmaalayo waddooyin fara badan oo kalena waa u tegi doonaa oo mari karnaa inaan aragno xitaa macluumaadka kombiyuutarada dadka ugu dhow dhan isticmaalayaan ama qof kasta kombiyuutarkaas booqanaya iyo goobuhu marayana waa baran doonaa macluumaad ku saabsan yuhuu isticmaalay intuu booqday intuu website booqday wuxuu daawaday waxaasoo dhan adoo kombiyuutarkaada isticmaalaya aad ka daawan doontaa taasina waa gaaraynaa oo noo xigtaa hadda maanta waxaa noogu horeyso sidii loo damiyo kombiyuutarka u dhow ama hal server iskula xirantihiin ama hal network iskula xirantihiin marka aan soconno marka hore waxaan baranaynaa hadduu ilaahay ma idiheen marka hore sidee loo ogaado IP addresska aad haysatay ee kugu xiran internetka sidee loo ogaado IP addresska internetka aad ku isticmaalayso marka hore halkaan aan saaraynaa waxaan leenahay right click open waxaan dul tegaynaa wireless inta waxaa nagu qoran nghajer wireless oo kii gurigeyga hadda computerkan ima dhowo waxaan tegaynaa details oo sidii warbixinada guud loo helo waxaan tegaynaa dhammaan MAC addressadii DHCP annaga waxaan baahanaa halkaan waa waxaan u baahanahay IP addresskaas oo xagee ku haystaa kii internetka aan ku helayo waa waayo computerkaas wuxuu yaqaanaa IP addresska internetka ku helo waayo IP addresska u raacda malahan waqti kasta oo internet kastood ku xiranta position ku helo IP addresska qaataa waana dynamic IP addresskaas rabaa numberkan intii ugu qoran oo 192.168.0.02 uma baahni kuwan kale waa routerka iskale shaqo ma lihin IP-gaas aan u baahanahay wada gal waxaa kale oon tegaynaa waddo kale oon hadda ku samayn karno inaan ku tagno gudaha computerka waxaan dhihi karnaa shut down minus haddana gudaha ka dami oo computerka maxaa ah inputkiisa dami waxaan leenahay noo safgarey markaa safgareyna meeshaan marka waxaa ku jirto sirta qarsoon oo markaa isticmaalo waa ss aan iri dot pat ama bat-gan markii lagu safgareeyo waxaa imaan karo markastoo kan lagu safgareeyo in virusyada lagu safgareeyo oo noocan laga dhigo computerada ugu gudubto way fududahay in xooga badan aad u isticmaasho xataa internet sharing computer dhexdiisa laga sameynayo haddii la sameynayo xataa waa loo adeegsan karaa haddii la rabo computerkaada virus in lagaga furo dhaqso viruskaas dhaqso lagu qoro code yar oo kooban oo virus computerkaas inuusan damin lagu xiraya bata loo adeegsada bata wuxuu la xiriiraa systemka markii uu virus wuxuu dirayaa systemka gudihiisa ama window ku dhex shubay waayo computerka markaas wuxuu noqonayaa mid dambe soo shidmo aan wax laga qaban karin waxaan leenahay noo safgaree oo bata nagu safgaree waxaan leenahay bata haddii lagu safgaree kalarkan ma yeelanayo ee wuu iska bedelayaa oo kalarka macduwan noo yeelanayaa dhag marka la siiyana shaashad madow kusoo kacaya marka click la siiyo all files markaan helay safe aan marka asla aragna muxuu inta noo soo saaray baatihii noocan ka rabnay haddii click la siiyo madow kusoo saara laakiin maxaa ku xiran inputkii oo computerka gudihiisa inputkiisu soo tuura hore kasoo saara halkana inputka dialogue anagu inta muxuu noo keenay cmd shaashada madow inoo keenay kama brontig inta daan galno
holaha naga wadan karnaa base inta tijaabo kor waan tusinayo si loo maro naga wato kana naga dilad galeen maatartar cmd aan leedahay marka common prompting aan isticmaalaynaa alana nagu dhafo laba xirbaadiga waxaan isticmaalaynaa waxaan leenahay waxaan ogaanaynaa horta nadka aan ku xiranay inuu server ku dhexdan yahay ama hadduu server yahay hawshoona fududaan kartaa net view wuxuu noo saarayaa muuqaalka nadka uu leeyahay waxaa soo daahay wuxuu ku leeyahay list of the server of this group listiga imtixaanahan is not current available ma hamid leedi kara listiga serverka clsana naga nadiifi waxaan weydiinaynaa ip addresskan kan hadda anaga kusoo ogaanaynay settingka iyo detailska dhexdiisa arabna halkan in ku ogaan computerka ip addresskiisa ip config alla config hadda markii la joogo liini kasoo karo ifl isticmaalaa config laakiinse markii la joogo window waxaa la isticmaalaa ip config oo sidaasay ku kala duwan yihiin naga waxaan joognaa waa kana marka ip addresska aan kusoo arkayna xagga aan rabnay inaan isticmaalno 192.668.0.2 waa ip version 4 addresskiisa kana waa router ip addresskiisa waa default gatewayga aan isticmaalayno subnetmaskiisa laakiin muhiimada guud waa kan annaga kanu nagu shaqeynaa computerka naga waa ka waxaan noolahay computerka naga waxaa kaloo baahanin waxaan leenahay naga nadiifi marka cls naga nadiifi waxaan leenahay noo soo kici marka input dialogue gaarmana inaan la soo saaro shutdown maxsaayo marka tale waa kale dialogue data noo soo baxaa noo soo muuqday waxaan leenahay ip addresskii aan naga isticmaalayna 192 ahaa inta noo geli ilaan waxaan rabnaa inaan damino computerka hadda nooma yaalo oo nagama agdhowo kanaan tijaabo ku qaadaynaa computer kastana waa same ip addresska helaysana 3 aa dhihi kartaa 4 aa dhihi kartaa waa dariskaaga kale 5 uu qaadan karaa 6 uu qaadan karaa computerada weeraraysa 7 uu qaadan karaa ip addresskiisa muhiimadu anaga kaanaga markuu 2 haysto qofka kale wuxuu qaadan karaa 3 qofka 4 uu qaadan karaa 4 dhihi okay dhihi marka hadhow waa ka damiyaa laadku ka damaa hadda marka anaga isaga daminaynaa waxaan restart u baahni igaba damay isaga dhan u baahni keegan 30 second kadib waa damaya dadisme waan laakiin waxa ku soo bandhigaya waan waxaan leeyahay wuu damayaa computer kaaga go engineer hajar haddaan okay iraado horey wuu falgalaya horuu ka daminaya okay niri waa inaan dhaqsi iska gaaraa iga xir